أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. walaalahayga dhamaantiin waa idin salaamay soo dhawaada janaalkayga kusoo dhawaada bilis janaalkayga haddaa ku cusub tahay subscribe like comment intaba ii saar insha allahu tacaala subscribe tani iyo like dhiirigelina ii tahay commentiga sidoo kale dhiirigelinu ii yahay insha inaan hore u socdo unbuu ii tusaya inaan gadaal u socdo ima tusaaye laakiin haddiina like ta ii saarin subscribe ta ii saarin commentiga iidin sameynin niyad jabay ii tahay insha allah inta commentiyada fiican ii soo qoraysa like-ta ii soo saaray subscribe sidoo kale ii soo saaray aada idinka mahad celinaya walaalahayga qaaliga idinka ayaan waxaan ugu ahay Soomaali qofka Soomaaliga qofka Soomaali unba horumar gaarsiiya qof walba dadkiisa ayaa horumar gaarsiiya ninka ajaanibka waa aragtay dadkiisa ayaa horumar gaarsiinaya qofan qofkaaga ahayn horumar ku gaarsiinayaan ma jirto insha Allah tacaala sidaas ku ogaada subscribe-ta iyo like-ta iyo comment-iga intaba ha iga iloobina walaalahayga qaaliga maanta maxaa idin wadaa maanta waxaa idin wadaa qiso aad u xanuun badan oo dhaxmartay gabar iyo hooyadeed iyo cunug yar ay dhashay gabar iyo hooyadeed ay qisadan dhaxmari doontaa laakiin kadib ilmo yaraa soo dhexgeli doona meeshan qisadan waxay ku bilaabanaysaa sida tan ay ku bilaabanaysaa qisadan wiil iyo gabar ayaa isjeclaaday oo maxaan ku dhahay gabadheeda wiil bay jeclaatay ee la socotay muddo badan ee la sheekeysanaysay xiriir badan ay lahaayeen ilaa ay markay xiriir badan lahaayeen adi 4 sano ilaa ay dhowr 4 sano ku dhawaad ay wada socdeen adi 4 sano waxba kama dhineen laakiin sida aan ku maqlay 3 sano adi neer iyo 8 bilood ay ahayd adi 4 sano iska waxba kama dhin bilooyin la ka dhiman gabadhii wiilka waxay xiriir lahaayeen ay wada socon jireen marka waxay ku kulmi jireen mar maqaaxiyo ku kulmi jireen oo ku shaahin jireen ku wada sheekeysan jireen marna waxay iskuul ku kulmi jireen gabar ay saaxiibo yihiin gabadha ay ku kulmi jireen waxay inta wada socdeen maalmaha kamid ah waxa dhacday gabadha intay soo kaxaysay dhahdo walaal abuu hooyo ayaan ku bahooy reerkan ku bariyaa maanta reerkan ku geynaya diyaar waa u dheer aad aan ugu faraxsanahay reerka i bartid gabadha way soo kaxaysay waxay keentay gurigoodii ay keentay hooyadeeda joogtay u imaaday Allah hooyo maanta wiilkan kula socdayaa waa hooyo wiilkayna ku bar ayaan kugu keenay waana ku bariyaa soo dhaw haye hooyo macaan diyaar waaye okay wiilkay gabadha bartay magaciisa weydiisay magaciisa u sheegtay ayadana magaceeda u sheegtay hooyada maadaama gabadheeda mar hore u sii sheegtay hooyada magaceeda laakiin wiilkii maamada laakiin hadda la barayaa oo hadda la isku horeysa laakiin magaciisa haye hooyo diyaar waaye okay gabadheeda ma isjeceshiin ha gabadhaadan hooyo macaan isjecelnahay intay wada socotiin ilaa ay hooyo muddo 4 sano ku dhawaad aan isla soconaa haye hooyo okay 4 sano wallahi hooyo macaan wax yar ma ahan insha Allah tacaala gabadheedii adiga waa isku kiin duceynaya maxaan ku dhahay waxiina soo gabagabeystay arintiina soo gabagabeystay ani gabadheedan insha Allah waa wada sheekaysan doonaa marka waxay dhaad arintiina soo gabagabeysina u baahanahay intan ka badan maxaan ku dhahay guur u bedelatin hooyo diyaar waayo dhahay aadan ugu faraxsan fikradda aan soo jeedisay aadan ugu faraxsan dhahay way wiilkii marka wuu baxay abaayo wiilkii gabadha wiilkii dhaweysay magaaladii geysay way ka soo laabatay markay magaalada geysay ay ka soo laabatay ee guriga ku soo laabatay hooyada u yeerto hooyo kaalay dhahday haye hooyo waan ku imaanaa way u imaantay hooyadeed bas markaas waxay dhahday hooyo macaan inaan kula sheekaystaan rabaa haye hooyo diyaar waayo waan ku imaanay way u imaaday marka hooyo soo fadhiisay dhahday wada sheekaysanayna maanta hooyo maxaa jira bas waxay dhahday hooyo wiilkan la socotay ma sha Allah waa wiil qurxoon waa wiil maxaan ku dhahay kaal iska arag muxuu ka shaqeeyaa muxuu qabtaa hooyo waxay dhahday wiilkan wax barasho u bugay marka maxay dhahday wuxuu qabtaa ay dhahday dhakhtar waaye oo ma sha Allah hooyo aad aan ugu faraxsanahay okay hooyo qabiilkiisa u baahanna ii sheegtay wiilkan yuu yahay markaas waxay dhahday hooyo qabiilkiisa waa qabiilkaas haye maamadii naxdin Allah hoogay Allah ba'ay ma qabiilkaas maanta wiil aad ii keentay waxa socotay waxa jecleedba oo waxa socotay oo dhahay maanta gabadheeda maanta wiil bay ii keentay oo guursanay aan dhahay ma ninka qabiilkaas ii keentay ha hooyo maxaa jira soo ka hadlahayd maxaan ku dhahay arintiina soo gabagabeystay aan dhahays Allah hooyo isma guursano Allah hooyo ma isgeyna Allah hooyo ma isguursano dadkaas Allah baayay Allah cadowgayga ii jibisay Allah maxaa kugu dhacay Allah maxaa tan u sameys maamadii naxdin bas gabadhi way yaabtay hooyo waxaad ka hadlaysay ilaa hadda kuma fahmin ani marka gabadha agoon waaye aabaheed uu dhintay bas adeeradeeda wacday marka adeeradeed markay dhawacday laban adeeradeed wacday ii imaaday guriga imaadeen gasaanisaana jirta gabadhan wiil saaysaasay jeceshahay waana wiilka saaysaase oo hebel iyo qabiilkaas ka soo jeedo waaye haye
wiilka nimankii way garteen wiilkii reerahoodii ay garteenba hay saas miyaha hay wiilka bal hanoola keena anaga wiilkii aa la keenay guriga wiilkii abaayo u wacday wiilkii imaaday guriga wiilkii markuu guriga imaaday waxay dhaheen maxaan ku dhahaa wayaa ku dhale odayaasha wareys wayaa ku dhale ninkaas ay dhale hay intee ka soo oomiyay qabiilka waa qabiilka saas miyaha okay hay waay marka waxay dhaheen bis anaga wada hadlayna marka gabaran marka anaga hada gurdiyaad u tiin anaga wada hadlayn anaga maxaan ku dhahay markaan ku dhahay diyaaranaana ima waa soo doonan kartaa la soo doono okay wiilka waa iska baxay abaaye ma dhaweynina dhaqaaqina la dhaaf fadhiisa la dhahay raacin wiilku iska baxay wiilka markuu saa u baxay waxa la abaayadan wiilkan laguma arki karaa la dhahay haddii lagugu arkana lug iyo gacan baa lagu jibinaa dhaqaaqadid maya dhahda kama haraaya dhahda wiilkaas nolosheeda asiga waaya dhahda haddii la iddilaan asiga dartiisa u dhimanaya masaas baa naa waa lagu dilaa gabadhaadii waa la garaacay waa la tume waxaas dhan dhigumay dhigin kadib waxay sameeyeen suuq inay aadin guri ka bixin moobeelka laga qaaday suuq ma aadaysid alle guriga ma ka bixi sida alle meel ma aadaysid alle meel ma soo sida alle gabadhi way yaabtay haye way telefonka laga qaaday abookeed saaxiibkeed meel kala xiriiraysa malaha meel kala hadlaysa malaha waxay sameysay wax kale tay kala garan weyse gabadhi bes adi ilaa iyo maxaan ku dhahay 2 bilood markay gabadhi guri ku xiran tahay ay magaalo aadeen ee meel aadaysa jirin ayaa waxay dhaheen marka maxay dhaheeday gabadhan markan waxaan u maleynaynaa ninka niyadeeda way ka baxday way ilowdaan u maleynaynaa markan waxaan ku dhahay free aan ka dhignaa iska dhaafna waa qadar uu rabbi qorayay soo ma ogdiin gabadhi marka mar walba waxay ku duceysan jirtay inuu ilaahay meeshan ka saaro ee maxaan ku dhahay qaabtan ay ku jirto ilaahay ka bixiyo oo maxaan ku dhahay magaalo ay aadaynin ee wiilka ay jecleen meel ay kala xiriiraysa ay jireen bes waxaa dhacday markay saas sameeyeen oo adig guriga eerigiis inay soo socoto loogu talagalay abaaheelay maalin markay suuqa u dhumato ay baxday albaabkay ka baxday markay baxday direct waxay u aaday gabadha saaxiibteed gurigeeda ay aaday markay aaday gabadha saaxiibteed baayo see tahay ma fiican tahay telefonkaaga iidi maxaa jira amba waxaan kala hadlayaa dhahday hebel aan kala hadlayaa hay okay maxaa jira min wada xiriirayna maya baay ma wada xiriirayna 2 bilood ma maan ismaqlin telefonka waa laga qaaday hay ho baay wiilkii markay wacata wuxuu dhahaa waxay dhahday wiilku wuu naxay yaa waa hebel maxaa telefonka maxaa u dansatay maxaa saan igu sameys walaal telefon ana ma dansanay dhahday telefon ma dansanay dhahday telefonku wixii ugu dhacana kaaga sheekayna ii imo okay wiilkii ordaa guriga imaaday uu guriga imaaday hay maxaa dhacay arrintaas jirtaa hay hooyo waxa la reerka wiilka isma guursan amaankasi isma guursan yaa ku dhahay hooyo dadkii ay dhahay hay maxaa tala marka gabadha waxay dhahay aniga tala ma jirto la adiga isoo jeeso ma diyaar weeyna waan ku jecelahay wiilku wuxuu dhahay markaan isla fakanayna aniga adi meesha waan ka dhaqaaqaynaa hay diyaar wiilka iyo gabadha waxay aadeen magaalo ka fog oo maxaan ku dhahay oo ilaa iyo oo ay magaalada u dhaweyn because u soo mehersaduu rabaa ay u dhaweyn u baxay because gabadha naabeed uu dhintaba maba nool adeeradeed u baano laakiin adeeradeedna haday magaalada dhexdeeda joogaan way ku mehersamaysan nin kaleeto bes magaaladii markay ka tageen ay magaalada kale aadeen wiilkii gabadhi dhac sheeqay u tageen maxaan ku dhahay dhalinyaro saaxiibadooda uu kaxeystay uu mehersaday gabadhi markuu mehersaday waxay sameysay uu mehersaday adeeg gurigay way wada guri galeen markay wada guri galeen abaayo uuraa ka soo baxay uuray yeelatay maasha Allah wiilka aad u farxay markuu wiilka aad u farxay gabadhi waxay dhahday maadaama aniga aan uur leeyahay dhahday markay maraysa 5 bilood meelaha sii maraysay oo walaci ku xanuustay maadaama uuraan leeyahay dhahday aniga waxaan u baahanay dhahday hooyadii aan u baahanay dhahday waxaan aan maray iyada way la soo martay dhahday waan u baahanay dhahday hooyadii okay wada diyaar gabadhi waxay socotay gurigii hooyadeeda imaatay ani hooyaha la iigay dhahday way soo masan guriga imaatay guriga markay imaatay maamadii naxdin afkay furatay maxaa hooy macaan wiilka waan ismehersanay maxaan ku dhahay uur baan leeyahay 5 bilood intaasana ka maqnaan maxay dhahday xanuun iyo maxaan ku dhahay naxdin iyo maxaan ku dhahay walwal adi aan ka walwalay darteeda aan u joogo way hadan saasan ku imaaday hay way dhahday gabadheedii soo dhawo markay dhahday wiilkii waxa la dhahay dhalinyaro loo kireystay markii loo kireystay waxa la waa lagu dilaa gabadhanada noo fur
waa lagu dilaa ka waa lagaa siinaa mise gabadhayda ii furaa la dhahay gabadhanada noo fur wiilka muxuu sameynaa waa lagu dilaa la dhahay maxaan ku dhahay waa loo goodiyey ma furay uu dhahay mana furi doonuu dhahay xabsiyaa la geeyay bawaan xabsi markii la geeyay adi waa la xiray ilaa xabsiyaa waxaa lagu xiray adi ilaa iyo waqtigu ku xirnaa intuu wiilka meesha ku xirnaa xabsiga uu yaalay oo xabsiga ku xirnaa adi ilaa iyo abaayadan 5 bilood ahayd markii gurigooda keenayo wiilka xabsiyaa la geliyay xabsiga markii la geliyay adi xabsiga ay geliyay marka waxaa waaye adi ilaa anaga aan soo sii daay idinka dhahnaa ma soo sii daanay dhahay ninkan dee maxaan ku dhahay booliisna maxaan ku dhahay meesha lagaaga badan yahana wax walba lagaaga samaysan karaa haye diyaar gabadhi waxay samaysay markaadi way dhashay way foolatay foola qabatay fool markay qabatay hooyadeeda raacday hooyadii markay raacday isbitaalkii ay aadeen isbitaalka markay dhashay ay aadeen gabadhi fooshi adi way dhashay markay dhashay hooyadii ilmaha loo dhiibay hooyadii markii ilmaha loo dhiibay maamadii waxay samaysay cunigi loo dhiibay cunigi markii loo dhiibay before gabadhi aan la tusin cunigi meesha ila fin maamadana waxay diyaarsatay masaasad ayay diyaarsatay inay ugu shubtay ay rabtaa sun yar inay sun ugu dhex dartay ay rabtaa gabadhi maamadii waxay samaysay masaasadii qastay biyo ku shubtay suntii ay haysay ugu dartay cunigi marka waxay uga dhigtay maxaan ku dhahay wax ku dhibcinayo naas ahaan ay ugu dhigtay afkii u gelisay afkii markay u gelisay gabadhi ma yarta istaaqbara intaan iga hor dhicin gabadhi dhiig la'aan ku dhacday way dhiig baxday markay dhiig baxday gabadhi way doorsoontay cirbad dhiig joojina lagu shuftay lagu dhuftay gabadhi cirbad dhiig joojina lagu dhaftay gabadhi adi maxaan ku dhahay qof miirkeeda doorsoomay noqotay maadaama aad u dhiig baxday bas gabadhi cunug warka ma haysto hooyadii baa cuniga haysay masaasadii ay biyaha ugu shubtay suntii riisteeda ugu dartay suntii markay ugu dartay cuniga ay siisay cuniga markay siisay cuniga direct waa dhintay cuniga markuu dhintay waxay sameeyeen dhaqaatiirtii horta intuu dhimanin cunigii wadnihiisa garaacmay wadnihiisa ku garaacmay dhaqaatiirtii warka ma haya ilmo markaas maxaan ku dhahay hal maalin joogo oo dhashtay hooyadana kagama shikinayaan ayada kagama shikinayaan way dishay sama ogid wadnihii maxaa cunigii marka dambe dhaqaatiirtii la wareegtay dhaqaatiirkii la wareegtay waa fiiriyeen hadii cunigii 20 daqiiqo kadib waa dhintay markii 20 daqiiqo hooyada loo imaaday hooyada waxay ku dhahay dhaqaatiirtii cuniga waa dhintay okay maxaa ku dhacay ma garanayna dee wuu dhinto wax dhibna kuma aragna okay maamada cunigii soo qaaday gabadhi markay soo miirsatay ee waxay ku dhahday hooyo cunigaagu waa cuniga meed baa dhashay cuniga markaas u dhashay cunigu wuu dhintay gabadhi naxdin way naxday bas dhaqaatiirtina way u sheegeen cuniga markuu saa u dhashay cabaaru joogay wuu dhintaa lagu dhahay marka cuniga iska samanaa la dhahay gabadhi dee run daacad u haystaa way ka samartay maxay sameyn inay ka sabartay leemo aho bas waxaa dhacday marka gabadha guriga iska imaadeen isbitaalka laga soo bixiyay gabadheedii ay babaanatay waxay u baahantay siisay maamadii maxaa ku dhici doona hadii maamadii waxaa ku dhici doona habeen walba ay seexato habeenkii markay indhaha isku qabato waxay u qaylinaysaa sida ilmo yar ahaan qayladiisa ayay maqlaysaa oo cabaadaya waa ku hay wurdadii ka toosi gabadheedii abawday maxaa hooyo kugu dhacay waxba hooyo adi waxay socotay habeen walba ku riyoonaysa cunug yar oo oyna ku riyoonaysa gabadheeda ay qarinaysaba markii dambe way booday waxay dhahday gabadheedii u sheegtay hooyo kaale dhahday haye hooyo cunugaagu wuu noolaa dhahday cunug nool baad dhashay cunuga noolka ahaa oo dhashay aniga isaa ku sameeyay aniga waxaasan biyo ugu daray aniga dilo hooyo cunugaada gacantayduna kuma qayahay inaad cafisaan u baahanahay gabadhi qaracan way naxday way oysay sidana hooyay way heeday dhahday aniga gabadhi oohin afkay furatay ninkayga ii soo siidaa marka ninkayga basun ii soo siidaa dhahday wiilka haawe diyaabaan kuu soo siidaan bay dhahday hadda kadib waa wada dhaqmaysiin hooyo macaantii cafi hooyo ani waan ku cafiyay xirad aniga dhashay cunug maxaan ku dhahday gacantaada ku dishay ani waxba kuma haystay dhad waan ku cafiyay ilaahay un ka barya dhahday inuu cafiskaas ilaahay ku siiyo ani waxba kuma haysta hooyadii tahay haye diyaar waa ninkii la soo siidaay ninkii markii la soo siidaay ninkina waa loo sheegay taariikhdaasaan sameeyay maxay dhahday maamada inay cafisina u baahan wiilku wuxuu dhahay aniga cafisaan cafinaya ma jirto hooyada xabsiyaan la tiigsanayaa buu dhahay
وين عديسان عنقها قبل يا بحير هذا ما يهسمين هذا ولا له وانكود اللي هذا المكبضنا انكود اللي هذا هسمين هذا فرح كقاضي هذا أيضا محن كده هاي إن أيضا إلهي اللي حساب تما إسكت أفيد هذا سمين هاي وايد ديارو دي قبل ويلكي هذا كيدو يلي فروه كقاضي مركب محن كده هاي ما يسمين بس قبل ويلكي وحي سمين مركب هاي أنا وحيد هذا قولي ما دقيا أنت وين كبتقيا نكى مال بو حق غير كود إيريا ساسوقو هاي هاي وإذين دعينا أنا قال يعفيه أذن كان الله يسكين بركة وحوكوا ما قبل يدهن هاي أنا وحنكوا قبل ما جرت مركب قوادي ويلك ويقورن حق غير كود إيريا غيرك حق يدقين دع ماشي كوريجن مامد ويكتجن مامد نهبين والبس عليه جيدون ببريسي بس قبل يصوب على هاي وحيد هذا وحي أدرك جت هذا ما أركت أنا كان إلههم كوبري وانكو دعية هبين والبان هاي إلهي كوبري وانكو دعية إنه إلهي محن كله يدم بدافك كوسيو ما أدركتها هاي ما يد هذا ما أركيد هذا هاي ما أنت وإذين دعينا إلهي أولادنا عنق قاعدين إني أنا وحاكو سمي أن الله يعافيه أولاد كبدن الله ينسيه هذا آمين ده مرك ويلكي قبادي ماشي وكل رقمين ماشي وكل المدلين ريك ويلك ريك كذا حقي سيقولين مرك إن شاء الله ولا له قارئ شيء كذا هالكاس يكون ما ينسى قصديني مرك وحاول ظلمي ومفيعنا ولي قال نفسي هقلين نفسي كاسو بحدو نفسي هو قيامه قدن هدا قدنا هديرين بالده ما فهمتي معمدي وحي قرأت إني أفكار القصة كل شيكت أي وحي سميسي أي شيكت صوبته إيه واحد هبين والبابا هرت هذا التاجر ما قارن كرتي نعشيكت ما استين قنيسة مركب ولا عليك شيء كذا هالكاس يكون معنا إن شاء الله تعالى إلهنا غيرها إن السيء أنت حنوصنا محان كده الله عافي أنت عاف ما تقبتنا الله أسيء هذه أنت ظلمي وضنا إلهي محان كده هاي ظلمي محان كده هاي الله كين ترى أو وناق الله تصق إن شاء الله تعالى خير بدنا إن رجينا ولا الله هيجا إن شاء الله خير بدنا